waad mahadsantahay habeen wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay xubinta isboortiga caawan waxaanu ku eegaynaa warbixin kooban oo ku aadan koobka qaarada ee ka soconaya dalka Brazil qaabka ay ku yimaadeen wadamada ka qayb galaya cid laga yaabo inay qaado iyo waliba taariikh kooban oo koobkaasi ku aadan waxa umurtan ila falanqeyn doona wariye Ibrahim Awale Gedo Bibo oo isboortiga si weyn u falanqeeya Bibo ku soo dhaw studio dabcan waxa suuragal ah dad badan inaysan ka warhayn koobkan qaarada ay haatan ka socon dalka Brazil warbixin kooban oo ku aadan taariikhdiisa waa mahadsantahay Cusmaan Xasan Cali ugu horreyn koobkan qaaradaha FIFA Confederations Cup waxaa la soo bilaabay sanadkii 1992 oo uu ku bilowday magaca King Fahd Cup ama koobka boqor Fahd oo uu maalgelin jiray maalqabenkii Saudi Arabia xilligaasi waxaana lagu martiqaadi jiray dalal ku guuleysta koobabka qaramada qaaradahooda iyo dalal kale ee Sacuudiga ku martiqaadaan koobkaas oo isagu martigelinayay sanadkii 1992 markii la bilaabay Argentina ayaa ku guuleysatay markale 2 sano kadib ayaa la qabtay isla Sacuudiga 1995 Denmark ayaa ku guuleysatay oo labadaas sano waxa lagu ciyaarayay magaca King Fahd Cup ama koobka boqor Fahd sanadkii 1997 ay isbedelka weyn dhacay markale ciyaaraha waxa martigelinayay Sacuudiga hase yeeshee qabanqaabada iyo magaca tartanka waxa la wareegtay FIFA oo xiriirka kubadda cagta adduunka waxaana loo bixiyay magaca hadda loo yaqaan FIFA Confederations Cup waxaana sanadkaasi martigelisay isla Sacuudiga oo lagu martiqaaday dalal haysta qaramada qaaradahooda oo lagu diray martigeliyaha Sacuudiga iyo koobka adduunka dalka haysta waxaana sanadkaasi ku guuleystay dalka Brazil xilligaasi FIFA waxay qorsheysay in labadii sano mar la qabto tartanka sanadkii xigay 1999 ayaa Mexico lagu qabtay oo isla Mexico ku guuleysatay 2001 FIFA waxay bilowday qorshe ah in sanadka koobka adduunka la qabanayo sanadka ka horeeya koobka la qabto si dalalka martigelinaya koobka adduunka ayagana ugu diyaar garoobaan martigelin ahaan iyo waliba ciyaar ahaan maadaama ayagu isla reeb aysan u galin koobka adduunka 2001 waxa lagu qabtay bariga fog ee Asia Japan iyo South Korea oo ay ku guuleysatay tartanka xulka Faransiiska oo ka qaaday Japan 2003 ayaa mar kale la qabtay Faransiiska lagu qabtay isla Faransiiska ayaa ku guuleystay 2005 waxa loo bedelay oo FIFA u bedeshay 4 sano mar la qabto oo laga soo badiyo in labadii sano mar la qabto waxa martigeliyay Jarmalka oo 2006 aadin koobka adduunka martigeliyo waxaana ku guuleystay dalka Brazil oo finalka Argentina kaga qaaday 2009 markii ugu dambeysay la qabta Afrika ayaa lagu qabtay South Africa oo iyaduna koobka adduunka 2010 lagu qabanayay waxaana ku guuleystay mar kale Brazil sanadkan waxa lagu qabanayaa Brazil oo sanadka soo socdo koobka adduunka lagu qaban doono marka si guud sidaas ayaa loo ciyaaraa waxaana ka qayb galay 6 qaarada ee adduunka xulalka ku soo kala guuleysta oo lagu diray martigeliyaha wadanka ah iyo koobka adduunka wadanka haysta dabcan haatan wadamo ka qayb galaya qaabka ay ku yimaadeen sanadkan waxa moodaa in uu xiise gaar leeyahay tartanka oo Brazil lagu qabanayo Brazil waa dalka ugu badan oo 3 jeer ku guuleystay koobka Faransiiska ee 2 jeer haysta marka 6 qaarad ee 8 xulay sanadkan ciyaaraya 6 kamida waxay haystaan koobabka qaaradaha dalalkooda Brazil waxay ku ciyaaraysaa martigelin Spain waxay ku ciyaaraysaa horyaalka adduunka oo koobka adduunka haysato Talyaaniga ayaa fursad helay oo qaramada Yurub matalaya maadaama kaalinta labaad uu ka galay sanadkii hore koobka qaramada Yurub oo Spain ay qaaday Spain horyaalka adduunka ciyaarayso Afrika Nigeria ayaa u ciyaaraysa oo koobka qaramada Afrika January ku guuleysatay South America waxa ka socota Uruguay oo haysata Copa America waqooyiga Mexico ayaa ka socota oo haysata wadamada CONCACAF la isku yiraahdo dalka sanadkan la yaabka ku ama ku cusub Tahiti oo haysta oo 23 gool laga dhaliyay koobka Oceania ku guuleysatay sanadkii hore dhinaca jasiiradaha Australia waa markii ugu horeysay oo dal aan Australia iyo New Zealand ahayn oo dhinacaasi ka yimaado koobkan ka soo qayb gala waa dalkii ugu tabarta yaraa ee koobkan qaaradaha amaba koob caalami oo FIFA martigelisa ka qayb gala 138 ayuu kaga jira rankiga FIFA ay soo saarto qiimeynta dunida ugu dambeyntii Spain way joogtaa Brazil ayaa joogta finalka ama yaa qaadi karaya isleeda aad oo saadalanaya sanadkan xulalkii ugu awoodda badnaa horta way ciyaarayeen inta badan oo Talyaaniga iyo Brazil waxay haystaan 9 koob adduun xulalka kale adduunka ayaa 10 koob haysto adduunka marka in labadooda semifinal ay joogaan Spain oo 6 sano ugu dambeysay kubadda cagta heerka xulalkana maamuleysay ay joogto waa waxay sagaar tartan ku yeelay Uruguay oo lagu diray sidoo kale waxay sagaar wax u yeelay saddexda semifinalka joogta Spain
Italy Uruguay saddexdu waxay doonayaan record France Argentina hore u dhigeen oo ah saddexda koob ee caalamiga ay ku guuleystaan FIFA qaban qaabisay inay ku guuleystaan Olimbikada adduunka ee kubadda cagta iyo koobka adduunka oo hore ugu soo guuleysteen Brazil waxay doonaysaa inay koobka difaacato xiise gaar ah u yeelan doona ciyaarta ugu adagna waa Spain iyo Talyaaniga oo la xasuusto wixii kala qabsaday sanadkii hore qaramada Europe finalka Uruguay waa isqaanaan Brazil oo South America ay isla yihiin waa dalal in badan iska soo daalay koob America marka hadalkaaga wuxuu isugu biishubanayaa Spain ay u badan tahay inay sanadkan ku guuleysan doonaan maadaama iyaga horyaalka adduunka yihiin iyo sidoo kale horyaalka qaramada Yurub isla markaana ay yihiin dad aan la iska dhicin karin xilliyadan Fernando Torres goolinta dabcan isaga loo saadaalinaya isaga hogaaminaya isaga la haatan hogaaminaya طبعا هرنانيسنا أفرقل يولي هاي أو أوروغواي أو عيارة وهاجاك خيارتنا داوني ساي حبينتي سبورتها بين مدنا وأن كوفا لاقيني نكوب كقاردها الدنيا كسرعنا البرازيل وهاجا إنت دك كاميرا ضوحة محمد حسين محمد يريسو طبعا عوالة جدو بيبا هي قلق بقلانو فانتاستيك يا سو جيدني في أمان الله.